بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وإن سلام على دمان سيدتين حال دين عافمتنا إن عافمت قتلي رجينا الله إدين سيادي ما شاء الله تبارك الله دي مال إني تمال وناس هدي هبين كوتا هبين وناس وقت كوتا وناس ولا شيء داونت ولا كي داونايو ما شاء الله تبارك الله وحامات إدين سوق بنا دلب أيسو دي بتاعي جرو ولا شيء يسور عادي تيك-توك marka insha Allah taala walaashii qaali dalabkaagi waa kana maadaama TikTok asiga video kaamil oo soo galeen oo video yar la soo gelin karo marka waa kana fadhiga soo kaamilkiisa ah ma sha Allah tabarakallah inta haysta Allah ziyaadi inta haysan Allah si ilaahay subhanahu wa ta'ala qof walba wanaag jecel oo jecel qof walaalkiisa ah wuxuu ka jecleystay inuu soo gudbiyo ayaa wanaagsan maadaama ay gar walaashay isoo codsatay inuu soo gudbiyo kaamil asagoo maxaa la dhihi jiray waa kana hadda fadhigii kaamilkiisa maadaama aad tiray waxaan jeclaa inaan asoo kaamil arka walaashay qaali aniguna waa ka gudoomay dalabkaagina hadda waan ku soo gudbiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xafdiyo umada Soomaaliyeed oo ilaahay subhanahu wa ta'ala xafdiyo hadana waxaan leeyahay insha Allah ta'ala daawasho waxaan idin leeyahay hada kana kan ugu cusub subscribe hadana la joogtay asxaabteena kamid tahay waxaan idin leeyahay welcome gacmo furan ku soo dhawaad insha Allah qalbi furan oo idin jecel oo ma sha Allah tabarakallah idin guji furan idin ku soo dhaweynayna oo ilaahay subhanahu wa ta'ala qadaro marka waa kana insha Allah ta'ala qaybtaan adeerta waa ujeedin oo laba kuraas oo dhaxyaalo bahal oo maxaa la dhigi jiray ma sha Allah tabarakallah qurux badan qofka uu fadhiisan kara qof kale oo diino ka dhigi kara ma sha Allah tabarakallah inta waxa inoo yaalo kursi kala asigana labada xabon oo is wadataa labadan xabane way is wadataa marka ma sha Allah tabarakallah halka midkan weyn ma sha Allah tabarakallah wuu wadayaa dhinacaas kale inta halka si jiro dhinaca kan halka si jiro afar xabo saddex xabo waaweyn aan dhahay iyo waxa waaye afar xabo oo gaagaaban oo laba nooc isku yihiin laba nooc isku yihiin ma sha Allah tabarakallah waa iska dhaxdhaxaad waa kuraas qurux badan ma sha Allah tabarakallah intaan soo jiidanayso marka ilaahay subhanahu wa ta'ala hana xafdiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala hana xafdiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala mar ilaa waxaan leeyahay hana xafdiyo umada Soomaaliyeed meel walba oo joogto ilaahay ku xafdiyo marka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinaynaa إنه خير إيش بش يبروق إلى سبحانه تعدون كن قصي آخرنا في الجنة وكواره يسود دوادا ولا شيء قالي وكنا دلب كادي قول حبنا وكوسو قد بي مرك إن شاء الله تعالى إجنا قدون إجنا وذ قدون كل جنب أنت جعل سماها أنت كمان تجعل الله كسر ريبة قف كيس ده هاي قف ولا شيء متوح كوسو قد بيسو وحنا يسو قد بينيسن كما أحد عتني ما هدي قف والبيسدو وكفكره هو مرك هذا مجاريس تورك اللغة هاي نحاو دقين محل دي جل هو أقصعه قف والبأكل الليلة عند الليل كيس هر هو تأسجا adiga bo dhagaha ha u dhigin dhagtaagan jalay ha u siinin wax walba qurux badan aad jeceshin umadaada u soo bandhig maadaama abaraha bulshada ku jirtid waxa fiican in qof walba walaalka wuxuu ka soo dalbaday ama wuxuu ka soo codsaday u soo bandhigid bini'aadanku wuu dib badan yahay qof walba si uu fikrad qalbinaad ka dhacsan dadka fikrad qalb ka dhacsan waxaan leeyahay qalbigooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala fikrad oo qurux badan oo ma sha Allah tabarakallah ugu badalo ana Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo ziyaadi firsadina haday qaldanta ay haday xun tahaybo marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu khayrkana wada waafajiyo umada Soomaaliyeed oo dhammaan walba ay joogto Ilaahay waafajiyo khayrka wanaagga wixii jecel iyo wixii xumaanta jecel kulli waa isku wadaynaa umada Soomaaliyeed afka luqada Soomaaliya wadaagna umada waa muslimiin waxa la jecel yahay qofka wanaaga ma sha Allah tabaaraka umadiisa faraayo mahma kaan oo qofku wax ku soo geliyo ama uu ku leeyahay wax qurux badan oo ma sha Allah tabaaraka Allah aan jecelaystay inaan ku soo bandhigo haduu ku dhaho waa ina qofka gudoonta ma aha ina qof qurux ma tashiid wax loo baahnaan qalbigiisa la geliyo laakiin ani waxaan jecelaystay ina waxba aan dhab u dhigin dadka maxal dhigi jiray oo qalbiga ka jirin qalbigooda ayaga u caafiya mar walba dhaha qof walba oo comment qurux ku soo qoro waxa ku tiraada shukran kii ku soo qorno comment qaldan ku soo qoro shukran ay fikradiisu ka soo dhibtay adi waxa maxal dhigi jiray waajibkaasan inaad tiraado qof walba shukran walaalkaygi iyo walaashaygi bas intaas oo kaliya waa guuleysanaysaa guushaagan waa gaaraysaa laakiin hadda ku mashquulshada istiraadid qof walba comment isoo qor jawaabtiisa siinaa ama maxal dhigi jiray qof walba ani maxal dhigi dhalin iraadiyo wanaagaygi iyo maxal dhigi jiray samahayga aan rabin maxal dhigi jiray mar walba waan daba taaganahay mar walba maxal dhigi jiray qofka waxaan leeyahay muxuusan isoo dhada istiraadid horumarkaaga magaalada marka qalbigaaga maxaa la dhihi jiray waxa ku fiican waxaas dambo ka tagtid oo wanaaga qofka u soo bandhigaysto oo kaliya qalbigaada oo kugu jiro qofka kugu qaado karo kugu qaato qofkan kugu qaado karin qasab ma aha dadka bini'aadamka isku laxjid noqdaa ama ina maxal dhigi isku qalbi noqdaa ama qof walba hadalkiisa qof kale oo noqdo ma ahan qof walba fikrad gooni oo leeyahay qof walba wuxuu leeyahay maxal dhigi jiray maxal wax walba u gaar ah jiro marka qof walba oo walaal qof wanaag haduu soo geliyo haduu xumaan soo geliyo aan kaliya raantay waxaan jeclaa inaan dhaho way hor u soco horumar wacan inaan dhaho aan jeclaa jirto oo qofka bini'aadamka niyada ka dilaayo ama maxal dhigi jiray warxam tashiil amura loo baahneen la imaanay marka ma wanaagsano annaka waan
dooni intaas wax wanaagsan ma aha waxaa wanaagsan qof walaalka inaa wanaajisid mar walbo oo maxaa la dhihi jiray ku dhahayo waxaanan kusoo gudbi ama waxaanan kula jeclaystay ama waxaana la iga soo dalbaday qofkii walaalka iga soo dalbaday iga gudoomo dhahayo oo wax wanaagsan oo wax qurux badan kuna soo dhaweey kuna raac dalabkiisa qofka bini'aadanka inaa ku raacidaa wanaagsan marka waxaa idin leeyahay walaalahayga qaaliga ilaahi subxaana watacaala wadankeena bartamaadka nagu soo celiyo caafimaad kheyr qabo bashbash iyo barwaaqo ilaahi subxaana watacaala weydiisanaynaa wax walba oo wanaag ku jiro ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiisanaa inuu kheyr noogu bedelo wax walba oo maxaa la dhihi jiray bashbash iyo barwaaqo ilaahi subxaana watacaala inuu na siiyo adduunyada korkeeda aakhirna firjanna waa tii aan sheegnay ilaahi subxaana watacaala ka rajaynaynaa marka soo dhawaada idin leeyahay kanaalka hadda nagu cusub subscribe haddana la joogtay asxaabteena kamid tihiin welcome gacmo furan kusoo dhawaada meel walba aad joogtay Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay guuleysta ummada muslimiinta ha guuleysato muslimiinta ha israacdo meel walba ay joogaan ilaahi subxaana watacaala ha ku xafdiyo cadowga ha ka qabto marka ducada iyo wanaagga iyo wax walbana waa wax ku wanaagsan waxaa yiri qofka walaalka kheyr u tuug hortiisa aad heshide marka kheyrka allahna waafajiyo intaana idinku soo talagalay caawa fadhigii quruxda badnaa iyo wanaaggii iyo mahadii jiray maasha Allah tabaarakallah waxyaabihii guriga u qurux badnaa oo qofka bini'aadanka indhihiisa soo jiidi lahaa qofka